السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن عشركم waxaan ku eegin doonaa income and expenditures amba expenses ka loo xisaabiyo ee loogu xisaabiyo Excelka. Inagoo soo qaadanay tusaalahan wixii income ayna soo galay iyo wixii expenses ay naga baxay. Marka waxaan soo saari doonaa sida loogu xisaabiyo income-ka and expenses-ka. Tusaalahan bisha waxaan soo qaadanay waxa way bisha May kowdeedii ilaa iyo 16 ayaan soo qaadanay. marka bisha oo dhan baad xisaabin doontaa halka waxaan imika ka dhignay tusaale ahaan numbers baan ka dhignay maalinta koowaad maalinta labaad maalinta saddexaad maalinta afraad ilaa bisha dhammaadkeeda amba intuu soconayo income ku soo gelaya halka waxaan ku qornay waxa weeyaan income sida ka muuqata halkan waxa weeyaan income halka ka muuqda waxa weeyaan in ID number certificate logo design mobile solution software in gawaari la kireeyay waxyaabahaas oo dhan waa halkan ka muuqdaan marka waxa weeyaan income meeluhu naga soo gelayay meeluhu income naga soo galay weeyaan meeluhu income naga soo galay income kaasoo kala duwan oo meelo kala duwan naga soo galaya halka waxa weeyaan lacagtii oo dollar isku geeyna oo aan ka dhignay lacagtii dollar isku geyn oo noqonaysa income-kii ina soo galay halka waxa weeyaan in date of expenses qarashaadkii inaga baxayay maalinta koowaad maxaa qarashaad naga baxaya maalinta labaad maxaa qarashaad naga baxaya maalinta saddexaad maxaa qarashaad naga baxaya maalinta afraad maxaa qarashaad naga baxaya ayaynu halkan isku soo geynay halkan waa number baan ka dhignay oo noqonay maalinta koowaad maalinta labaad maalinta saddexaad maalinta afraad qarashaadkii naga baxayo kala tusaalahan waa qarashaadkii naga baxayay waxa ku xiga waxa expenses-kii oo noqonayo maalin ahaan markaa u qornay number ahaan ayadoo expenses qoranna waxyaabii naga baxayo kamid ah electricity bill water bill papers sheet oo noqonayo waraaqaha koobiga in daily expenses phone numberada internetka qarashaadkii inaga baxay waxyaabahaas oo dhan weeyaan waxyaabahaas oo dhan qarashaadkii inaga baxay weeyaan waxyaabahaas oo dhan weeyaan halka waxa ka muuqda waxa weeyaan marka waxa weeyaan waxa soo saari doonaa totalkooda expenses-ka iyo total income-ka iyo profit loss waxaan macaashnay amba waxaan qasaarnay ay soo saari doonaa marka halkaas waxa weeyaan expenses-kii weeyaan in waxyaabii expenses-kii oo dhan weeyaan wax kasto expenses ayaa halka ka muuqda oo lacagtoodii aynu ku qorno wax kasto expenses ayaan ku qornay lacagtoodii haddii aynu highlight saarno waxa weeyaan expenses-yadii inaga baxay weeyaan expenses kasta oo inaga baxay weeyaan marka waxa weeyaan qaabka loo xisaabinayo ayaan xisaabin doonaa halkan tusaalahan waxa ku qoran total income marka equal baa taabanaysaa sum baynu qori doonaa qoos baynu furanaynaa kadibna way isku soo wada geyn doonaa lacagteennii oo dhan marka enter baynu siinaynaa marka enter siino waxaa noo soo baxaya lacagta totalkeedii lacagta marka totalkeedii waxaa noqonaysaa 7,450 haddaynu xisaabino totalka expenses-ka waxaad oranaysaa equal sum kadibna qoos baynu furanaynaa marka way isku soo geynaynaa saasaan isku soo geynay soo jeedinaa enter baynu siinaynaa marka waxaan odhan doonaa total income-ka ayaan halkan ku eegi doonaa total income-ka marka waxaan odhan doonaa waa equal marka waxaan click gareyn doonaa totalkeennii enter baynu siin doonaa marka waanaga soo dhignay marka waxaan kala jiri doonaa totalka oo laga jaray expenses-ka totalka oo laga jaray expenses-ka marka totalka oo laga jaray expenses-ka waxa loo xisaabinayaa waxa weeyaan equal bay qori doonaa marka waxaan click gareyn doonaa 720 minus 12 laga jaray marka enter bay taabanna marka 15 baa halka soo baxay 15 ayaa soo baxay marka inaynu profit galnay amba loss galnay qaacidadan kaga shaqeynaa qaacidadan ka shaqeynaa waxaan odhanaa if ayuu qori doonaa equal ayuu marka hore qorinaa marka equal qorno if ayuu qori doonaa markaan if qorno oo noqonaysa haddii marka qows baynu furaynaa waxaanu click garaynaynaa waxa weeyaan income-kaynu click garaynaynaa markaan income-ka click siino calaamadda ka weyntii baan qorinaa expenses-kana waxaynu ku dhufanaynaa deetana expenses-ka marka ku dhufanno dot iyo double rotation baynu qorinaa
dot iyo double rotation marka qorno waxaan qoraynaa profit baan qoraynaa markaan qorno double rotation iyo dot baan kusoo xidhaynaa marka if baan qori doonaa if markaan qorno qows baan furan doonaa mar labaad markaan qows furano ayaynu income click siin doonaa markaan income click siino aynu ku dhufanaa income ayaynu calaamadii ka weyntay mar labaad qoraynaa expensesna waan ku dhufanaynaa kadibna waxaynu qoraynaa dot iyo double rotation marka loss baan qoraynaa loss ayaan qoraynaa double rotation bay kusoo xidhaynaa iyo qows marka iminka qaacida waa halkaa ka muuqata qaacidadaas waxay markaa inoo sheegaysaa inay profit inaynu macaash amba wax macaashnay amba loss galnay marka qaacidadaas waxaan kaga soo shaqeynaa xisaabteennii markii koowaad waxaan isku soo geynay waxa weeyaan total income-keennii markaan total income-keennii isku soo geynay ayaan total expenditures amba expenses-keennii isku soo geynay markaan isku soo geynay baynu expenses-kii ka jarnay income-kii markaanu ka jarnay ayaynu qaacida qornay qaacida marka waxaan kusoo saarnay waxa weeyaan inaynu wixii expenses iyo wixii income haddaynu profit galnayna profit buu nagu qorayaa haddii loss galnayna loss buu nagu qorayaa marka iminka marka qaacida marka inter siino inta marka siino aan yes siin idhaahno waa ka profit noo soo saaray profit ayuu noo soo saaray marka iminka waxaanu profit galnay aanu macaashnay waxa weeyaan 15,328 waxa markii hore totalkeenu noo waxa weeyaan 27,450 halka 12,131 uu ka ahaa expenses-keenu markaynu kala calaamadinayno tusaale ahaan wixii income aynu soo galay haddii aynu saa u calaamadaa saarno oo aynu tusaale ahaan wixii income aynu soo galay baynu saa odhanaynaa marka saan idhaahno income-ka oo dhan buluug baan ka dhiganaa income wixii income aynu soo galay marka tusaale ahaan buluug baan siinay lambaradana way waaweyneen wixii expenses ama qarashyada inaga baxayna waxaan siinaynaa casaan bayn siinay wixii qarashyada inaga baxayna intaynu soo jiidnay ayaan soo tagnay waxa alla wixii qarashyada inaga baxayna waxaan siinay casaan waxa alla wixii qarashyada naga baxay waxaan siinaynaa casaan bay siinay casaan ayaynu siinaynaa bool bay ka dhignay isagana total income-keennii oo halkan ku qorana intaynu highlight saarnay ayaynu ayagana waxaan siinaynaa calaamadda buluugga baan siinay waana yar waaweyneen marka halkaas waxa weeyaan total income-keennii baan ka dhignay haddaynu xaggan usoo jeednana expenditures ama qarashaadkiina waxaan siinay expenditureskiina waxaan siinay calaamad ah kadib sidoo kale ayagana bool baan ka dhignay way yar waaweyneen farta expenditureskiina waa halka waa total income-kii markii hore total income-keennii weeyaan marka total income-keennii waa mar labaad total income-keennii baan ka dhignay profit hadday waxaan macaashnay calaamadaas aynu siinayna calaamada buluugga baan siinay huruudda baan siinay isagana markaa saasaa looga shaqeynaya excelka iminka markaa qarasheedkeennii waa halkaa ka muuqda hadaynu soo qaadano waxaanu xisaabinay waa kaa qarasheedkeennii waa kaa markaa iminka markaad ku xisaabinayso excelka markaad ku xisaabinayso sidaasaad ku xisaabinaysaa halkan waxaanu gelinay waxa weeyaan
bilihii ayagoo numberna waynu gashanay ayadoo income-na waynaga qornay income-kii waynaga qornay markaa lacag ahaan baynu income-kii qornay markaa totalkii income-ka halkan baynu gelinay markaa totalkii income-ku sidoo kale expenses-kii bilihii bay qornay ayagoo number waynu qornay expenses-ku waxyaabii nagaga baxayna waynaga halka ku taxnay hadday copy tahay hadday internet bill tahay hadday discount tahay hadday computer tahay hadday teacher salaries tahay hadday shidaal tahay marka halkan waxaan kusoo saarnay waxa weeyaan qaacidadan waxaan macaashnay iyo total income-kii total expenditures-kii iyo profit waxaan macaashnayna waynu soo saarnay waxaan macaashnay waynu soo saarnay markaas saasaa looga shaqeynay markaa 15 kun bay noqotay markaynu qaacidani gelinay qaacidani markaan gelinay qaacidani gelinay 15 kun bay noqotay imika wataa qaacidani tani mar labaad dib u eegno wataa qaacidani halkaa ka muuqata qaacidani wataa qaacidani ku ka shaqeynay wataa markaad ka shaqeynayso saasaad uga shaqeynaysaa markaad ka shaqeynayso okay marka casharkeena intaas ku soo gabagabeynaa halkaas ku joojinaa inta casharkan cashar lamida soo geli doona. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.